madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jaray laba dugsi sare oo ay hirgelisay guddida horumarinta ee gobolka Saaxil ee Dan iyo Duco. Munaasabadaasi xariga jarka oo ka dhacday mid ka mid ah labada dugsi sare gaar ahaan dugsiga Dabaylweyne ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay oo hanaankeeda dhicitaan laga soo shaqeeyay. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida, murashaxiinta saddexda xisbi qaran ee wadani kulmiye iyo wicid, salaadiin maayarada caasimada Hargeysa iyo Berbera, guddida Dan iyo Duco ee iskuuladan hirgelisay, haween, siyaasiyiin iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ugu horreyn waxa uu madaxweyne Siinaye markii uu halkaasi soo gaaray oo xariga ka jaray labadan dugsi sare ee Dabaylweyne iyo Dubur. Intaasi ka bacdina waxa ugu horreyn munaasabadaasi ka warbixiyay qaar ka mid ah guddida Dan iyo Duco ee iyagu iskuuladan hirgelisay, kuwaasi oo ka warbixiyay iskuuladan iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen intii uu dhismuhu socday. labada iskuul markii aanu bilaabaynay dan soo gaabinayay dad badan baa waxay nagu lahaayeen iskuulo boardna oo secondary ah ingiriiskii u baahan ingiriis baa nimankiina istaadarcinaya ingiriis baa tihiin bay nagu yahay dhammaanta ingiriiskii labadii sheekh iyo camuud mar muu wada dhisin bee innaga marka ingiriiska ka sii sareyno maanta mid baynu wada dhisin marbaynu taas waxay muujinaysaa ummadda hadday wax qabsato oo casiimadii la timaado waxaan ku shaqaynaynay oo dhaahda ingiriiska odhanaysa to begin is half done. sideed kuna doolar baanu haynay markaanu dhagax dhigayno sideed kuna doolar haddii casiimadda lala yimaado ummaddu la timaado salaadiin, xildhibaano iyo murashaxiinta saddexda xisbi qaran ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaana ay hoosta ka xariiqeen iskuuladan iyo muhiimadda ay u leeyihiin da'yarta soo koraysa. kullay waxaanu nahay dadkii deegaanka dhammaan annaga marti naloo yahay maanta waxaan idinku soo dhaweynaynaa hadal wacan gacmo furan waxaanu leenahay soo dhowaada. waxa weeye meel kastaaba waxay leedahay munaasabadeeda. dhammaan dadka waxaan ku soo dhaweynaynaa dugsiyada Dubur iyo Dabaylweyne. iskuulo iskuulada maxaa kun ilaa 800 arday baa loogu talagalay oo boodhana moodayna wax ku bartaan. waa saaboorkeedii iyo gawa Soomaaliland nin kale iyo nin kale waa la og yahay. waa yaana la oranin waa qarandumin ila waa ceeb weeyaani. waxaan leeyahay ugu baaqaya shacabka reer Soomaaliland waa in maadeeyaal wax garadku waa la yaqaanaa dhagagaaraha tiifiyada wax ka caaya waa naga celiya. وينانو شيغيا مدحونا شركه soo socdo baxrasaafka weeye filim ma wado isna bilo ma wado madaxweyne ma wado khayrka sii badan ayuu buu dhalayaa weeye reerka sidana sheegay yaan looga shakiin balaayo sallallahu alayhi annaga dhibaatadu way nagu yara badan tahay laakiin soo iska dulqaadanaa. qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa iyaguna ku ammaanay guddidan Dan iyo Duco waxa fiican ay qabteen. qofka ka mas'uulka dugsiga inuu noqdo qof xula waxa loo baahan yahay guddidiisna taageerana boqolka iskuulka ayaa loo baahan yahay macallimiin wanaagsan baa loo baahan yahay dabcan waxa loo baahan yahay qalabkii iyo buugaagtii ardayda ku baran waxa kale loo baahan yahay arday wanaagsan. waxa aan ku soo gaabinaya gobolka Saaxil bulshada taalo oo hambalyeynayna siday u taageereen waxqabadka siday u soo dhaweeyeen gobonimada Saaxil waa qarayna reer Saaxil gobonimadeedana waa qarayna. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaye, waxaana uu guddidan ku ammaanay Dan iyo Duco waxqabadkooda. sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka labada iskuul ee Dubur iyo Dabaylweyne. waxaan balyeelayaa guddida Dan iyo Duco ee fulisay mashruuca qiimaha badan.
waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay maskax muruq iyo maalba dhismaha hoyga waxbarasho waxaan dhiirigelinayaa mashaariicda horumarinta ee dalka waxaan xukuumad ahaan diyaar u ahnahay inaanu gacan ka geysano sidii ay u shaqayn lahaayeen cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV dugsiga Dabaylweyne ee ka tirsan gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Mandheera.